kulanti wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan asxaabi meel kastaad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka Danger Show oo uu maanta marti inoogu yahay Daahir Galbeeti oo ah aqoon-yahan wax badan deganaa dalka Canada haddana degan magaalada Toronto wuxuu kaloo Daahir ka shaqeeyaa uu ololeeyaa isku xirka qurbo joogta dibadda dalka kusoo maqan iyo dalkii hooyo ee Soomaaliya daahir kusoo dhawo barnaamijkeena Danger Show. Danger Show waa ku mahadsantahay runtii soo dhaweyntaada runtiina waa kaaga mahadinayaa. Adaa mudan. Daahir waxaa iga warantaa qurbo joogta markii aan dhahno qurbo joog sideedaba ma waxaan ka hadlaynaa dadka si gaara ma waxaan uga hadlaynaa dadka North America iyo Canada oo kale degan iyo Europe oo kale isku duub adiga wadamada reer galbeedka degan mise waxaa qurbo joog la yiraahdaa dadka dalkoodii dibadda uga soo maqan guud ahaan marka ereygaas waxaan rabnaa marka hore inaan kala saarnay noo kala saar. runtii waxa weeyaan qurbo joog waxaa wax allaale dadkii ka soo ambabaxay waddanka ku jiraan wadamada jiiraanka laftigooda Ethiopia iyo Kenya laftigooda ay ku jiraan iska daa wixii ka shisheeyo qof kasta oo waddanka maanta ka maqan waa qurbo joog. marka saad og tahay waddanka 90kii baa badankeeda ummadda ay ka soo baxday qaarna wadamada jiiraanka ayay maaragtay sii tageen qaarna wadamada Afrika qaarna waxay tageen Asia iyo wadamadan Carabta ah runtii hataa dhanka China kadibna dee wadamada reer galbeedka oo ay maaragtay Europe iyo North America iyo Mareykanka iyo Australia iyo dhulkaas ay sii aadeen marka koleytaba qurbo joog baa la wada yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed. magaca qurbo joogta wuxuu soo aruurinayaa wax qof kastoo dibadda uga soo maqan dalka. aad iyo aad qof kastoo qurbo joog ah marka dadka qurbo joogta runtii waxaa kusii jiroo kale dadka qaxootiga ku ah dadka wadamada jiiraanka macnaheedu dadka qurbo joogta waxaa lagu yaqaanaa dad shaqaysto oo ayaga markaasito amba macnahii dadka waddanka jooga ama heladooda masruufo qurbo joog saasaa runtii badanaa loo magacaabaa oo dad sharci la weye macnaheedu dadka laakiin wadamada jiiraanka oo qaxootiga ku jiro ayaga qurbo joogta kuma jiraan waa qaxooti weye weli. Okay. marka kaalinta qurbo joogta kaalinta badanaa waa laga hadlaa meelo badanna waa looga hadlay kaalintii ay ka galaan dhismaha waddankooda iyo meelaha ay joogaan marka adiga ahaanta wax badanna waa arkaysay waana la soo shaqaysay adiga ruuxadaada qurbo joog wax badan joogay waddamadana tahay maxaa u malaynaysaa kaalinta qurbo joogta ee uga jiraan dalalka ay joogaan kaalintii ay uga jiraan iyo dalkoodii hooyo kaalintii ay uga jiraan. runtii waa mahadsantahay waa su-aal runtii aad muhiim u ah runtiina horta horeeto annaga runtii haddaan nahay dadka qurbo joogta Soomaaliyeed ee dibadda ku nool kaalintii looga baahnaa dowladda Soomaaliya maadaama inkastoo ay hadda ay soo jirtay dowladda federaalka 10 sano 11 sano ay hadda jirtaa kaalintii looga baahnaa oo in ay ka ciyaarto oo ay waddanka runtii wax oga tarto dadka qurbo joogta sida wadamada Afrikaanka iyo wadamada Asia ay dadka qurbo joogtooda uga faa'iidaysteen welibana baahi xoog leh ay jirto oo dowladda Soomaaliya oo dowladda federaalka u baahan tahay qurbo joogta garabkeeda weli wax qorshe ah oo rasmi ah oo ay dowladda federaalka la timid oo ay maaragtay uga faa'iideysan karto maalgashiga xirfadaha aqoonta qurbo joogta ma jirto kaas weyn baa horta marka qurbo joogtiina runtii siday dowladda u kaalmeyn lahaayeen iyo siday maaragtay wax uga qaban lahaayeen laftigooda dhib bay ku noqon marka waa arrin aad iyo aad u baahan xallin dowladdan inay qorshe la timaado ay muhiim ay tahay. waxaad leedahay kaalin sax ah sidaan hadda u fahmay kaalin sax ah oo ay hadda uga jiraan dhismaha dalkii ma jirto oo weli way kala daadsan tahay kaalintoodii markii dalka la fiiriyo waayahay dalalka ay joogaan kaalintee uga jiraan wadamadan aan joogno reer galbeedka iyo wadamada kale oo saa sheegtayba meel kastoo hadda ay Soomaali joogaan kaalintee aad u malaysaa inay uga jiraan xagga dhismaha wadamadaas kale. runtii wax weyn bay runtii ay ka qabsadeen wadamada ayaga ay joogaan Soomaalida khaasatan
inkastoo weli lafta dhaliilo ay sii jiraan. Waayo runtii hadda laba generation baanba almost aan maraynaaba, oo caruurtii anagu aan dhalnay caruurtii ay sii dhalayaan, oo maanta haddeertaan ay maaragtay hadda ay sii socoto. runtiina macnihii waqti badan bay qaadatay, ilaa 35 sano qurba joog baa la wada yahay, waa ustaad u og tahay. kaalin weynna runtii qurba joogta Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool aad bay uga qaateen, khaasatan qaybta weyn ay ka qaateen waxa weeyaan siday wadankii heeladooda siday wax u tari lahaayeen, oo maaragtay ay lacag ugu diri lahaayeen. Marka lacagtaa joogtada ah oo ay bil kasta u diraan heeladooda wax weyn bay kasoo qabtay, ay kasoo tartay wadanka Soomaaliya laftigeeda. lacagaha ay maanta wadanka uu ku socdo oo ganacsiga ku socdo waa lacagaha joogta ay soo dirto way badankeeda. ayaguna runtii hadee koleyta wadamo aysan aqoonin bay yimaadeen, halgan xoog leh bay galeen. runtii waxa tacliim barto, wax shaqeeyo, wax caruur ku dhalo. macnihii intaas horta dadaal weyn baa la sameeyey, masaajidyo badan baan dhisanay, community baan samaysanay. weli laakiin kaalintii sidii la rabay weli ugamanaan soo bixin, oo wadajirkeennii baa weli maaragtay sidii la rabay ugamanaan faa'iidaysanayn. waa sax waa sax. markii la fiiriyo waxaa la dhihi karaa dalalka ay joogaan way kala duwan yahay. dabcan dalalka ay joogaan way kala duwanaanayaan, fursadaha ay dalalkaas ka helaanna way ku xirnaanaysaa. laakiin wadamada ay yimaadeen Soomaalida qurba joogteeda waxaa la dhihi karaa wax muuqday ka sameeyeen dalalkii ay joogeen, waxna way ka qabsadeen, dalkoodina way ka anficeen, waa la dhihi karaa soo ma? waa la fikraa, laakiin dhaliisha ugu weysaan kuu sheegay waxa weeyaan qofka qurba joogta markii uu wadankiisa uu moogtahay uu si nidaam leh oo sharci leh uu wadankiisa wax ugu qabanayo, uu ku maalgashanayo si sharci leh, markaasuu horumar fiican samayn karaya, niyaddana u sii fiican tahay. laakiin mar haddii wadankii aad moogtahay dowladdiina kaalinteedii aysan ka soo baxaynin, lacagta aad rabto wadanka inaad gelisana si sharci aadan ku geynaynin, ya dowladdiina kaa caawinaynin maalgashiga aad samaysanayso iyo kaalinteedii dowladda inay ka soo baxeen, dhibaatooyinkaasaa jirto. marka runtii lacagaha Soomaaliya wixii masruuf ah oo dadka ehelada loo dirayo waa gooni, laakiin maalgashigii badanaa qurba joogta waxay maalgashtaan wadamada carabta ah, khaasatan wadamada East Africa ah, weliba Kenya si xoog leh bay u maalgashteen Soomaalidu, oo runtii guryaha ama ka gataan ama ganacsiga ka furtaan, maalgashi xoog leh gashteen. laakiin haddii wadadaas sida nidaamkaas ay ugu samayn lahaayeen wadankooda, oo dowladda Soomaaliyana ay kaalintaas uga qaadan lahayd, wax weyn bay wadanka tagi lahayd. marka qurba joogta saan la soconno adigana aad og tahay way noocyo badan yihiin. waxaa jira hadee dad oo dhan ay isugu jiraan qurba joogta bulshada dhinacyadeeda. waxaa jira dad wax bartay oo aqoon leh iyo qaar aanan aqoon lahayn, kuwo dhaqaalo leh iyo kuwa aanan dhaqaalo lahayn, intaba waa la isugu jiraa qurba joogtii. marka isku duuduubkooda maxaa u malaynaysaa qof walba kaalinta uu ka geysan karo? kuwa dhaqaalaha leh ha ahaadaan, kuwa wax bartay ha ahaadaan, kaalinta aad isleedahay way ku habboon tahay ama dhinaca aad isleedahay way ugu habboon tahay inay ka qayb qaataan. inkastoo saa sheegtay jiraan caqabado badan, laakiin haddana maxaa u malaynaysaa dhinaca ay hadda ay abbaari karaan? saan kuu sheegay horta horeeto waxa weeyaan caqabada ugu weyn waxa weeye dowladdii oo aan wax qorshe ah qurba joogta dhankeeda la imaanin. marka waxay noqonaysaa marka annaga qurba joogta haddaan nahay annagii inaan isqabanqaabino, runtii sidaan dowladdii uga dhaadhicin lahayn in nidaam dowladda ay la timaado. wixii way qoran yihiin, runtii sharciyadii dowladda way samaysay, oo national policy oo diasporada waa la sameeyey, ama sharciga qurba joogta waa la sameeyey, wasaaradda arrimaha dibadda golaha wasiirada waa la marsiiyey, sharcigii wuu jiraa. laakiin hirgelintiisii ayaa meesha ka maqan. hirgelintiisana waxaa ku qoran runtii in dadka qurba joogta, hay-adaha ama dadka wadan kastaba qurba joogtooda inay ayaga isa soo nidaamiyaan, dowladda markaasayto invitation ay u samayso,
waddanka khaasatan martiqaad weyn la sameeyo, dallad oo qurba joog ah la sameeyo, dalladaasi markaasi mas-uul ka noqoto dadka qurba joogta oo dhan. marka dalladaas waxay anfaci lahayd sidii ay dowladda ogala shaqayn lahayd ama la talinna u samayn lahayd, maalgashina ay dhankeedana kala shaqayn lahayd, iyo dibudhiska waddankana kala qaybgeli lahayd. hadda badanaa dowladdii hadda waxay leedahay qurba joogtii, hadda ololo badan baa socda waddanka gudihiisa, dowladdii ay leedahay qurba joogtii baan u baahannahay in maaragtay la dagaalanka maaragtay argagixisada nagala qayb galaan, nala qayb galaan dibudhiska waddanka. laakiin wax qorshe ah oo nidaamsan dowladdii weli ma hayso. dhibaatadan waxa weeyaan aqoontii baa meeshii ku yar, oo wasaaradihii loogu talagalay inay barnaamijyadan fuliyaan, aqoontii dadkii ka shaqayn lahaabaa meeshii ka maqan. okay, marka qorshahaas sidee loo samayn karaa adigoo arrintaas hadda aad ka dhawaajisay qorshaha ah qorshe la-aanta xagga dowladda ka socda, sidee loo dabooli karaa baahidaas oo qorshe toos ah oo labada dhinacba ay ka faa'iidaystaan, dowladdii iyo qurba joogtii isku xiraaya, sidee loo abuuri karaa, yaana keeni karaa? runtii arrintaas waa horta nidaamka wuu u qoran yahay run ahaantii, laakiin waxay u baahan tahay sida hadda maalan annagu haddaan reer Canada nahay, runtii waad la socotaa basra inaan samaynay oo maaragtay Somali Canadian Diaspora Forum, hay'ad oo maaragtay macnihii madasha bajoogta reer Canada ayaanu samaynay. madashaas waxa weeyaan waxay matashaa dadka reer Canada oo dhan oo waddanka ku nool. marka waxaana jiro dad badan oo reer Canada runtii waddanka ku nool oo Soomaaliya tagay ama Kenya, wadamada jiraankooda laftigooda wada joogo. marka waxaan rabnaa anagu madashaas aan samaynay, xafiis baan haddeertaan ka furnay magaalada Muqdisho. xafiiskaas aan ka furnay iyo Kenyaba waa ka furnay, laba xafiis baan ka furnay. waxaan rabnaa dadka reer Canada marka ugu horeyso in aan tusno bal dadka qurba joogta kale inay ayagana sidaasoo kale isku soo nidaamiyaan, oo maaragtay markaasna dowladda aan qorsho oo la tagno. marka hadda xafiiskii waanu furnay runtii, diiwaangelintii dadka qurba joogta ee reer Canada ayaan wadnaa. markaan taa dhammayno oo annagoo weliba garab kasii helayno dadka qurba joogta ee ku nool waddanka Canada, inaan labadii marka aan isku xirno labada qurba joog waddanka dadkii u noqday iyo dadka waddanka weli Canada jooga, oo wax allaale waxay u baahan yihiin dadka qurba joogta reer Canada waddanka raba inay yimaadaan, inaan facilitationka ama shaqooyinka u baahan yihiin ama guryo ama maalgashi waxaasoo dhan inaan u qabanno. isla markaana dowladdiina aan tusaaleyno in aan la samaysano iskaashi. marka iskaashigaasi waxa weeyaan inay sharciyadii ay noo banayso, maalgashigii ay nala qabato, oo annaga si toos aan dowladdii ugu xiranno. sidaasoo kale marka samayn karayaan wadamada kale oo ama reer Kenya ha noqdaan, ama reer South Africa ha noqdaan, ama Carabaha ha noqdaan, ama ha noqdaan reer Yurub ama North America ha noqdaan, ama Mareykanka, inay ayagana nidaamkaas samaystaan dowladdii. markaas kadibna dallad la sameeyo oo markaas dowladda ay martiqaad u fududaanayso, waayo waxay haystaan hay-adihii oo badankooda dibadda oo shaqaynayo. meeshaasna aan kala talin karno habkii loo baahan yahay si maaragtay dadka qurba joogtaa siday waddanka wax uga qabsan lahaayeen. sidaasaan marka anagu kulley tilaabadaasaan qaadnay, waad ka warqabtaa, waanu ka wada hadalnay, nidaamkaasaanu ku soconnaa insha allahu tacaala. maasha allah, way wax wanaagsan waaye, waa tilaab fiican. waa ka hadashay in micnaha aad isu keenayso oo talada ulajeedada loo sameeyo ururka inuu yahay in la isu keeno qurba joogta gaar ahaan dalka Canada kuwa ku nool, markaana la jiheeyo oo loo jiheeyo siday wax uga qabsan lahaayeen dalkoodii. maxaa marka faa'iidada ugu jirta dadka? waa ogsoon tahay wax badan halkaan ay degnaayeen, halkaan ay la qabsadeen noloshoodii, halkaan ay tay ku dhisteen, dadaa halkaan ilaa iyo 30 sano jooga ama ka badan, caruurtoodii halkaan ku dhaldhalay. marka dadkaas qaabka aad ugu soo jihayn lahayd aragtida hadda aad sheegtay oo ah inay dalkooda miro gashtaan ama dalkooda inay investment ku sameeyaan oo ay dhaqaalo gashtaan ama waxay qabsan lahayn xaggaas ka qabsadaan,
qaabkee loogu jiheynayaa dadkaas maxay tahay faa'iidada iyagana ay ka helayaan dalkina faa'iidada uu ka helayo runtii waxa weeyaan saad og tahay qof weliba waxa weeyaan waddankiisa inuu u noqdo ayuu doonayaa caruurtiisa inuu meesha geeyo u jecel yahay oo luuqadii iyo dhaqan celiskii iyo waxoo dhan uu sameeyo qofkana dad badanna waxay jecel yihiin in maaragtay guryahoodii ay u noqdaan ama hadday dhul lahaayeen dhulkoodii maaragtay say uga warqabi lahaayeen amase ay maalgashi u samaysan lahaayeen marka awal runtii qof waliba aniga xataa markii ugu horreysaan Soomaaliya tagaa weyn baa iga qabsaday waayo ma haysanin wax information ama talo wax iga siiyo habku waddanka u shaqeeyo meelaha la maalgashan karayo hadduu dhul kaa maqan yahay meelaha la aadi karo oo sahlan adigoon maaragtay dhibaatooyin kale marin marka informationkaasito xafiis baan u samaynay oo ay maaragtay qofka markuu yimaado halkaas ka tusaaleyn wuxuu allaale wuxuu u baahan yahay hadduu u baahan yahay in guri uu maaragtay gato hadduu guri ka maqan yahay gurigii aan la raadino haddii maaragtay dowladda uu dokumenti rabo inuu ka samaysto aan kala shaqayno hadduu rabo inuu maalgashi u samaystana habka ugu fiican oo maalgashiga loogu samaysto Soomaaliya inaan maaragtay halkaasi tala ka siino marka waa facilitation hadday caruur rabaan inay iskuul geeyaan sidoo kale oo maaragtay caruurtooda rabaan inay quraan hala baro ama af Soomaaligii hala baro dhanka dhaqanka ha noqoto inta talooyinkaas oo dhan oo si sahlan ayagoon dhib marin ama 2 bilood ku qaadanin oo ama dad badan intay lu gooyaan lacag badan ku cunaan aysan dhibaatadaas aysan marin ayaan facilitationkaas oo dhan u sameynay saad ogtahay organizationkan aan madasha qurba joogta reer Canada waa organization ama hay'ad cusub wey runtii hadda website-kii baan wadnaa website-kan dhisi doonaa halkaasay marka wax allaale wixii oo information ah ay ka heli karayaan iska diiwaan gelin karaan su'aalo nagu soo weydiisan karayaan ooga jawaabi karno su'aalahooda qof allaale qofkii oo maaragtay talo u baahan ama waddanka wuxuu ka doonayo waxyaalaha uu ka rabo ama maalgashi ha noqoto talooyinka halkaasaan ka siin karnaa marka runtii website-kan within bil gudaheed ama bil iyo bar gudahood insha Allah tacaala wuu shaqayn doonaa informationkana halkaasay ka helayaan waana wax loo baahan yahay runtii baahi xoog la jirto oo dadka maanta dad badan oo Soomaali baa waddankii ku noqday reer Canada khaasatan laakiin dhib badan bay kala kulmaan dad badan oo maalgashi la aaday oo maalgashi rabay haddana information qalad la siiyey lacaga badan ilaa 100,000 150,000 200,000 ama 50,000 30,000 ka baxday oo si qaab daran ooga baxday waa wixii 10 sano 20 sano lacagtuu qofkii uu maaragtay meel dhiganayay hal mar 2 bilood gudahood ay uga soo dhammaatay waddankiina dee iskaaga soo noqdeen mar dambena maba lagu soo qaadi karo waddankii marka dhibkaasaa jiro dhibkaas oo dhan baan rabnaa in maaragtay dad badan baan xataa xamar intaan joogay kala taliyey laakiin weli dhibki buu jiraa laakiin markaad la haysto meel xafiis lagu soo hagaago haysatana website oo dadka ay maaragtay informationka ay ka heli karaan ama qabaarka ay ka heli karaan ay doonayaan waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay wey marka informationadaas oo dhan hadda waxaad leedahay waa u diyaarinay jawaabahoodii oo dhan waxayna kala xiriiri karaan website-ka oo informationkaasita lagu diyaarin doono iyo idinka idinla soo xiriirayaan oo arrimahaas aad ugu talagasheen inaad qaybtaas ka jahal bixisaan soo ma waa saas weeye runtii waana Kenya laftigooda dad badan oo qurba joog aan ku arkay oo runtii fikrad xun ka haysto Soomaaliya oo iyagu markaas hataa fasax aysan u tagin hataa cabsi daraaddeed oo u maleeyaan maaragtay in lagu qarxinayo meesha marka dadkii maogtahay fikrado badan oo qaldan ayaa ka jira dad badan oo tagana dhibaatooyin bay kala kulmaan ayagoo micnihii helin la talin fiican oo aysan maaragtay waxyaalaha ay doonayeen si qaldan maaragtay u galeen marka muhiimadda waxaa weeyaan barnaamijkeennan waa barnaamij weyn runtii oo dadka kale oo qurba joogta oo waddamada kale ku nool laftigoodana ayagana ay u noqon karto tusaale u noqon karto markaasna ayaguna waddamada ay joogaan sidaasoo kale ay u samayn karayaan marka insha allahu tacaala waa dadaal bay u baahan tahay runtii dowladda Soomaaliyana waa dowlad iska haddeertaan 10 jir weeye 11 jir weeye weli nidaamkii iyo dhibaato xoog lah waddanka jirto aqoon daraa ka jirto
marka dadka qurba joogtana siday wax ugu qaban lahaayeen inaan anagu isxilqaano ayaa loo baahan yahay maanta oo dowladdii aysan waxba ka sugin waayo dowladdii maanta dadka aqoonta leh oo maanta dowladda ka shaqeeya aad bay u yaryihiin marka sida dadka u malaynayaan ma ahan oo dowladdii waagii siyaad barre oo kale ma ahan oo xididada u asnaa oo serviceka iyo macnihii hufnaanta shaqada qof waliba wuxuu wasaaradda uga baahan yahay oo inuu wax kasta uu ka helayay laakiin maanta wasaaradaheeni dad aqoon leh ma joogaan dad oo shaqada yaqaana ma joogaan marka waxaas oo dhan dadka qurba joogtaa looga baahan yahay inay booskaas buuxiyaan waana arrimaha aan mas-uuliyadda aan iska saarayno weye hay-addeennan haddaanu nahay Somali Canadian Diaspora Forum inaan anaga waajibaadkaasita aan ambaarsano waa gartay waa mahadsan tahay waxaa jirta middan ah qurba joogta saa la socotid qurba joog badanaa horta baxday oo dalkii tagtay qaar badanaa meelo badan Yurub ha ahaato wadamada kale oo Afrikadaas iyo xataa Canada iyo Maraykanka dad badan oo baxayaa jira oo wadankii tegay qaar ka shaqaystaa jira qaar maaragtay businessya ka sameeyaa jira laakiin haddana sidaas ay tahay sheekooyinka naga soo gaaraya kulligood wada positive ma aha oo macnaha sheekooyinka naga soo gaaraya dad badan oo waxaa jira dadkii dalka joogay oo aanan qurbaha soo bixin badanaa waxay ku eedeeyaan qurba joogta kasoo laabatay dibadda in ay shaqooyinkii muhiimka ahaa qaataan inay maaragtay waxyaabo badan maaragtay qalalaasi ah ka sameeyaan dhinacyadaas marka maxaa is leedahay qurba joogta faa'iidada ay geeyeen dalkii iyo waxyaabaha la sheegayo maxaa adiga ahaanta aragtidaada see tahay runtii horta horeeto waxa weeyaan soomaalidu haddaan naga soomaali nahay waa hadal badan nahay hadalkana ma ogtahay waxa weye marka hadal wax hadday iska noqoto waxa weeyaan dadku ma ogtahay waxay ka eegayaan dhanka xumaanta ka eegayaan laakiin dhanka wanaag kama eegayaan waad ogtahay prime ministeradii badankooda wadanka intii 10 sano soo noqday madaxweynayaashii intii hadda 2 madaxweyne soo noqday nina qurba joog buu ahaa nina wadanka wey fahamsantahay laakiin prime ministeradii kulligood waxay dad wada qurba joog bay ahaayeen baarlamaanka 60% waa dad qurba jooga wey fahamsantahay ayaga marka waxa weeyaan wax wadanka dadka wadanka jooga runtii dhib weyn baa haysto waayo dhibaatooyin badan bay la kulmeen dagaal bay 30 sano 40 sano ay ku jireen ayaa haysatay marka arrimahan oo propaganda ah qurba joogti lagama rabo maxaa meeshii dadkii shaqo la'aan waxa haysto dadkii shaqo la'aan lacag la'aan baa haysato waxa haysato dhibaatooyin aad dagaal waxaa jirta argagixisadii xoogaa weli sii jirto midda ugu yar dhalinyaro boqolkiiba wadanka 70% waa dhalinyaro wadanka wadankii wuxuu u baahan yahay shaqo abuur in loo sameeyo dhalinyaradii oo shaqo saad ogtahay lacagaha qurba joogta maanta aan dirno gacanta waxay u galaan dad yar bay u galaan oo 2 bangi iyo 3 bangi bay gacanta u gashaa lacagtaasna kadibna waxaa lagu keenaa bur iyo dibaddaba looga keenaa raashin iyo petrol iyo wax allaale wadanku u baahan yahay oo dhan baa loogu keenaa lacagtaas adag oo lacagta qurba joogta ah marka laakiin shaqo abuur wadankii gudihiisii warshada yaryar beerihii in maaragtay la maalgeliyo baddii iyo kalluunkii in la maalgeliyo xoolaha in la maalgeliyo meesha ma jirto bas lacagtaan oo dhan hadda aan dirno waxay bangiyadan uga faa'iidaan sidii dibadda wax looga keeni lahaa raashin aan bur saliid sokor maxaan ku idhahdaa alaab dhismo petrol wadanka intaasaa ka socoto laakiin warshado iyo beero iyo maalgashi iyo xoolaha la maalgashta iyo midna ma jirto waxaa loo baahan yahay dowladdii inay la timaado qorshe waartaan kuu sheegay lacagtan ay qurba joogta soo dirto waa inay central banka toos u gashaa dowladda way haysataa central banki way nidaamsan tahay laakiin waxa ka celinaya oo u diidayo ayaa ilaa haddeertaan la fahamsaneen marka waxaa moodaa in meeshatan dad yar ee wadanka weli ay gacanta ay ku haystaan oo aan dowladdii la rabin inay horumarka ay samayso oo lacagtii adkeyd dowladda inay gacantooda soo gasho marka waa wax qof kasta Soomaaliya og weeyaan
waayo annaga haddeertaan in aan dollar waddankeena uu ka dhex socdo maxaa nagu kalifayo waa waxaa su-aasha qof ka jawaabi kara maanta ma jiro laakiin waa la ogyahay maxaa shilin soomaaligii loo daabici la'yahay maxaa central bank lacagteena toos ugu dhici la'da dowlad baan haysanaa bangigii world bank lacag buuna siiyey aan ka amahanaa xataa hadda maahabaaba soo socotabo laakiin central bankeeni sidii la rabay uma shaqeeyo maxaa loo dhammaystiri la'yahay waa su-aalo loo baahan yahay in aan maaragtay si hufan markalan inaan ka hadalno insha allahu tacaala waa taas waa laftigeeda aad iyo aad waa aad arrin iyo aad ma insha allah mar kale iyo xalqad kalean u samaynaynaa su-aalahaas ma kula tahay qurbo joogta inay arrimahaas gacan ka geysan karaan oo ay meelahaas albaabadaas xiran iyo isku maaragtay samayn karaan wax soo saarkaas hadda naga dhiman dalkii markii la fiiriyo waa saa sheegtay wax walba dibadda laga keenaa marka ma kula tahay in arrintaas ayta loo istaagi karo saan kuu sheegay kuljoog kastaba khaasatan wadamada reer galbeedka maadaama waxaan u leeyahay reer galbeedka oo xoogga loo saaray waayo waa wadamada badankeeda boqolkiiba 90 dowladda soomaaliya caawiyo weye donors la yidhahdaa micnihii waa deeqbixiyaasha wadanka waaye marka deeqbixiyaasha runtii waxa weeyaan dowladaha reer galbeedka waaye annagaana ka mas-uul ah marka haddaan annagii aan isxilqaano haddaan nahay dadkii qurbojoogta oo reer galbeedka ku nool in aan hay-adaheenna iyo dowladda maalan dowladdan canada annaga hadda aan ka soconno iyo hay-adeennan partnership baan samayn doonaa insha allahu tacaala dowladda soomaaliyana sidaasaan markaasito ugula hadlaynaa annagoo magaca reer canada ku hadlayno ayaanu dowladdana oo la tegaynaa ka caawinaynaa wax allaale dowladda canada wixii macaawine ee ka siin lahayd dowladda soomaaliya inaan annaguna aan kala qayb qaadan sidoo kale maraykan ha noqdo ama ingiriis ha joogaan ama sweden ama wadamada reer galbeedka oo dhan waxay ku leeyihiin runtii quwad bay ku leeyihiin oo macaawino badan bay dowladda soomaaliya laakiin kaalintii qurbo joogta aa meesha ka maqan haddii marka qurbo joogta ayaga baarlamaan baan leenahay xildhibaano baan leenahay oo baarlamaanka canada ku jiro waddan kastoo reer galbeeda runtii soomaali badan oo baarlamaanka ku jira ayaa jiro oo ka faan oo maaragtay xaggii dowladdiina aan kala hadli karno runtiina saad u ogtahay xataa xildhibaano badan oo baarlamaanada reer galbeedka waddanka intay tageen oo ayagii kala hadlay laakiin nidaamkiia meeshii ka maqan oo keliya marka nidaamkaas haddii la buuxiyo runtii waxaan qaban karnaa shaqo aad iyo aad u weyn insha allahu tacaala ilaa idinkiis su-aasheeda ugu dambaysa marka waxay tahay maxaa kula talinaysaa dadka qurbo joogta gaar ahaan dadka qurbaha canada iyo north america aan isku wada dhaho north america kuwa ku dhaqan iyo kuwa qurbaha kale ee wadamadaas kale iyagana ku baahsan maxaa kula talinaysaa maadaama aad adiga wadcigii wadanka ka jirayna aad soo aragtay ama sidii wadankii uu ahaana aad aragtay iyo baahidii jirtay halkaana aad la socotid baahida jirta iyo waxyaabaha ka jira aad la socotid labada dhinac maxaa is leedahay ama maxaad kula talinaysaa dadka qurbo joogta ah ee north america runtii waxaan kula talinayaa marka ugu horeysa waxa weeyaan in ay horta horeeto ku kalsoonaadaan dadka u shaqaynayo ama hay-addan haddeerta matalan anagu aan samaynay inay ayagu runtii kalsooni ay isku geliyaan in ay nala shaqeeyaan dadka qurbo joogta reer canada khaasatan haddaan la hadlayo iyo hay-ad kasta oo qurbo joog oo dibadda ah oo rabto waddanka inay wax ka qabato inay kala shaqeeyaan badanaa dadkana soomaalida annaga ma naqaano hay-adaha habka ay u shaqeeyaan badanaa waxay isleeyihiin qofkaas saa dan qaasa ku wato marka dantii guud oo dhan baa meesha ka baxaysa runtiina hay-adahana wax shaqada ay qabtaan waa shaqo aad u weyn weye marka waxaan kula talin lahaa in dadka reer canada khaasatan annaga hay-addanito madashan qurbo joogta reer canada ama somali canadian diaspora forum inay nala shaqeeyaan kaalintooda ayaga wixii macaawina laga helo hadday u baahdaan wixii facilitation ama fududayn ah ay waddanka uga baahan yihiin in maaragtay aan u qabanayno inay nala soo xiriiraan oo markaas waxyaalo badan oo ayagana u baahan yihiin aan u fulin karno shaqadaasna ay runtii saas u fududaanayso marka wada shaqayn haddii ay dadka soomaalida fahmaan haddaan ku darsan lahayn inaan wada shaqayn aan xoojinno runtii wax weyn baan qabsan lahayn khaasatan waktigan lagu jiro oo caruurteennii maanta oo ayaga maanta shaqo ama jaamacadihii ay kasoo wada baxeen badankoodii
caruurtay sii dhalaan u baahan in ayagii laftigoodii wax dhaqankii waddanka in la baro u baahan oo caruurta annagu dhalnay waaba annagaa badbaadinayba ilaahay waa badbaadshay laakiinse waxa weeyaan annagaa weli la joogno laakiin caruurta ay sii dhalaan waa gacantay ka baxayaan haddii aan markaas loo samaynin nidaam waddanka lagula xiriirin lahaa haddaan loo samaynin marka waxay noqonayaan dad oo hadda caruurteenna haddii caruurtay dhalaan sheekana de iska noqonayaan soomaalina dambena ma yaqaanaan marka laakiin haddaan annaga hadda u qabanno shaqadan oo aan linkigaas iyo isku xiriirkaas aan u samayno caruurtaas waa badbaadayaan hadduu ilaa insha allahu tacaala marka maasha allah ay aada u mahadsan tahay daahir galbeeti maaragtay barnaamijka nagala soo qayb gasho waa ku mahadsan tahay iyo warbixinta aad naga siisay ololaha iyo ururkaas qurba joogta aad wadid haddii ilaah raalli ka dhigana kulano kalena waa yeelan doonaa oan uga hadalno iyadoo faahfaahsan waxqabadka ururkaas iyo howlaha meesha marayaan insha allah waa isaga soo laaban doonaa aad ugu mahadsan tahay asxaabay idinkana aada ugu mahadsan tihiin barnaamijkan waa barnaamijka Danger Show qaybtiisaan maanta intaasaan uga baxaynaa hadday tahay markii ugu horreysay aad barnaamijka la kulantayna fadlan like noo saar subscribe-kana noo saar insha allah haddii ilaah raalli ka dhigo barnaamijka dambe intaan ku kulmi doono waa anigoo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo